السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وان إذن صلاني صاحبية ومركلة إيو إسكسو نقشو وناكسن وصاحبكين سعيد حقا أو أي وذا سعودان صاحبكي أحمد صديق كسو دواذا برنامج كينا مانتا قيب تكررسو أقوم تاردا واتحي maadaama inta badan asxaab badan ay nagu yaqaanaan xagga xisaabta waxaan xoog saari doonaa inta badan bilowga sheekadeenna xisaabta iyo wixii laga qoray waa tahay 14 maarso hadda waa 14 bisha Maaj ee sanad kasta waa maalinta caalamiga ah ee loo asteeyay xisaabta halku dhiga sanadkan ee hay'adda UNESCO wuxuu ahaa xisaabta meel walba waata waxaan ku bilaabayaa sanad kasta bisha Maaj 14keeda adduunka waxa laga xusaa waxa loo yaqaan BI Day si loo aqoonsado xisaabta joogtada ah BI waxay ku qeexaysaa sida ay u kala eg tahay wareegga goobada dhexroorka iyo qiimaha BI waa 3.14 cabir marka la qiimeeyana waa 3.14 waxaa jira siyaabo fara badan oo xisaabta looga dhigi karo badadaalo sida inaad ardayda ugu dhufato shay maskaxeed ama aad u jebiso kaftan xisaabeed laakiin maanta waxaanu dabaaldegaynaa quruxda xisaabta iyo nolol maalmeedka halkan waxaan ku soo gudbinaynaa inaan ka caawino ilmo kasta oo Soomaaliyeed ee jecel barashada xisaabta iyo sida ugu wanaagsan ee loo jeclaan karo barashada inta aan ogolaan lahayn in xisaabtu tahay wax adag oo aan la baran karin dabaaldega maalinta caalamiga ee xisaabta waxaa jira liis xaqiiqooyin ah oo ku saabsan xisaabta aad u adeegsan karto si aad u muujiso ardaydaada xisaabtu inay meel walba joogi karto sida la falgalka dabeecadda fasalka iyo meel kastaba axmedo intaasi waxaa dheer waxaan ku soo dari doonaa hadduu alle idmo xoogaa tala bixin ah oo ku saabsan xisaabta fasalka dhexdiisa iyo xaqiiqooyin xiiso leh waayahay haddii aad u malaysa inay xisaabtu tahay caajis fiiri oo dhegayso xaqiiqooyinkan xiisaha leh ee aan kuu soo gudbinayno waxaa laga yaabaa inaad beddesho maskaxdaada tusaale ahaan ma og tahay sababta aan mar kasta u leeyahay xisaab magac weyn ayaa ku jira waanan hubaataa waa tahay kooras barbardhigyadii qarnigii 16aad waxaa lagu qoray erayo maadaama inta badan astaamaha xisaabta aan la alifin ilaa wakhtigaas bal ka fikir inta warqad eed u baahnaan lahayd inaad samayso ka shaqaynta imtixaanaadada haddii weli taasi jirto waayahay tusaalaha koowaad ee xisaabta muhiimadda ay leedahay markab dagaal oo ay leeyihiin ciidamada badda ee dalka Mareykanka ayaan tusaalahan ku bixinaynaa waxaanu leenahay markab dagaal oo ay leeyihiin ciidamada badda ee Mareykanka oo loo yaqaan USS Yorktown ayaa waxaa shaqada laga joojiyay in ka badan 2 saacadood sanadku markuu ahaa 1997 sabab la xiriira shaqaalihii markabka oo si qalad ah ugu qoray eber yacni calaamadda eber mid ka mid ah kombiyuutarada markabka tani waxay keentay in softwareka markabka in uu qaybiyo calaamadii eber taasi oo sida aan wada ognahay aan la qeexi karin ama aan la sii bedeli karin eber wax ka dambeeya haddaba haddii eber uu markab dhan oo weliba mid dagaal ah saacada loo joojiyay bal qiyaas inta aad adigu eber u haysato maala yacni aan waxba ku fadhin iyo waxyaalaha uu samayn karo waa tahay ma la socotaa ereyga Google inuu sameeyey wiil 9 jir ah markaas oo adeerkii oo xisaabyahan Mareykan ah ka codsaday inuu erey sameeyo adeerkiis oo lagu magacaabay Edward Kansner wuxuu markii dambe adeegsaday ereyga inuu u qeexo lambarka 10,100 oo loo qoray hal oo ku xigto 100 eber Google mashiinka raadinta waxaa lagu magac daray lambarkaas sidaa darteed 9 jir ayaa magacan weyn ka geystay mid ka mid ah shirkadaha ugu caansan ee adduunka Sheikh Google waa tahay Google ilmaha yara shaqo kulaad leedahay inuu qayb ka noqdo Axmedow ilmaha yara shaqo kula haddaba waan hubaa xisaabtu inay tahay qurxinta maskaxdaada xaqiiqdii xisaabta ayaa door weyn ka ciyaaraysa sharaxaadda qaababka dabiiciga ee aan ka tarjumayo xisaabtu waxaa ka mid ah isku ekaanshaha wareegga
hirarka jajabka qaybinta wadata isku dhufashada iyo waxyaabo kaloo badan markaa xisaabtu cajaa'ibteeda ayay leedahay markana waxaan la hadlayaa macallimiinta waalidka iyo ardaydaba inay xujadan raadiyaan furaheeda xujadaasina waxa ay tahay sida tan barkada yar ee qubayska ah ee loo yaqaano bathtub يعني بركadaha waxaan ka wada Axmedow suuliyada marka la sameeyo baadka lagu meedho dadka la dhaxgalay biyaha lagu shufteeyo ayaa ka wada marka barkada yar oo qubayska yani loo yaqaano bathtub celis ahaan waxay qaadataa 80 galaan oo biyo ah halka barkada dabaasha ee cabirka Olombikada adduunkana loo sameeyay in ay qaado 660,253 galaan oo biyo ah haddaba ma ogaan kartaa inta barkadood ee biyo in ay qaadi karto si loo buuxiyo barkada dabaasha tilmaanta jawaabtu way caddahay waa 8,253.16. waxaan rajaynayaa inay taasi kaa caawisay inaad beddesho maskaxdaada ku saabsan xisaabta oo ku tustay sida xisaab ay noqon karto ma og tahay suurtagalnimada iskudayga la sameeyey in badan oo adduunka ah oo nagu wareegsan annagoon xitaa ka warqabin saynis yahanadu waxa ay sheegeen in marka ay tahay 14 Maaj iftiinka qorraxda wuxuu qaataa qiyaastii in dhulka soo gaaro 485 ilbiriqsi ama 8 daqiiqo iyo 15 ilbiriqsi waa tahay dhegaystayaal iyo daawadayaal intaas waxay nagu dhan barnaamijkeeni kororso aqoontaada oon maanta intaa idinku talagalnay tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay anigoo Axmed Sadiiq iyo saaxiibka Saciid Xagaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh